qorayaan cadawgan ka xooga aad u jeedo barxadana ninka uga qaatay anuu hortiis qoramalay qora qaraabaan ku dilay qaraabadana gobol erigooray kala baxeen halo u naxariista ma lahayn cunug dhaafi meehin islaan dhaafi meehin anfacad dhaafi meehin wax uu dhaafaya ma lahayn maalintaas ilaa ay hadda la joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan aan taaganahay goobtan hadda anigu aan taaganahay waxa lagu dilay urjooga sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Ninkaasi waxa uu qaabilsanaa dhanka canshuuraha waxaana uu dhibaato badan ku hayay dadka ku noolaa degmada Ceelbaraf iyo deegaanada hoos yimaada isaga oo lacagahooda qaab baada ku qaadan jiray. Haddaba waxa halkan igula sugan Maxamed Maalin Jiniqow oo ahaa geesigii fuliyay howlgalkaasi guuleystay ee lagu dilay hogaamiyaha Al-Shabaab. Waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo sida ay dhacdaas u dhacday waxa ku kalifay iyo sidoo kale xilligaasi sida uu dareenkiisu ahaa. maalintaas maalin bay ahayd maalin aad u weyn ay ahayd maalin waxay ahayd farxad badan guul badan qayr badan oo ah maalintii ugu horeysay ee gobolka Shabeellada Dhexe laga xureeyay cadawga ku soo duulay dalkan iyo dadkan mahan aad u jeedo waxaan ku dilay nin ah Al-Shabaab amiir canshuur qaadista qaybta lacagta gaadiidka ma had ilaaha iskale ilaahay ay igu guuleeyay Allah ii hiiliyay cadawgii dalkan ku soo duulay haddaan dilay ilaahay asaad dilay ma sha Allah waxa ka rabaa Maxamedow halkan magaalada ma iga haysto waqtigaas Shabaab xilligaas magaalada iyo ka haystay waxay ahayd xilliga uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud anuu nin iska herbaadiyahan ahay dib u xureynta dalka oo nin la arkaba qorigiisa la soo baxo halla dirira cadawgan dalka dadka ku soo duulay ummadda Soomaaliyeed dilay dheeftoori qaatay dhidigowga dhacay wax kastay u baneestay si sharci ah waafaqsan sharcinan ahayn oo ay ka mudaysteen inay tahay sharci ilaahay waa igu guuleeyay waxaan ahay nin u dhashay deegaankan afarta tuulo iska ah harqaanle tosho dharka dhidigowga anoo ilmaha u bariisaadsada ayaan waxaan isku dayay in aan go'aan qaato aan dilo cadawga dalkan dadkan ku soo duulay aan la diriro ku dhiirigeliyo dadkan ila dhashay ee ka tirsan deegaankan Shabeellada Dhexe ilaa afartiisa geesood inta Shabeellada Dhexe ka koobantahay aan ku dhiirigeliyo in la dilo shabaabka lana noolaa karo markii aan ku dhiirigeliyay walaalo badan oo Soomaaliyeed oo beel ay ka sii tahay ayaa igu dayday oo u dhashay gobolka Shabeellada Dhexe waxaan uga dayday aniga in inta la dilo la noolaa karo dad diris nala ah oo hogaamiyaha nin leeyahay Cali Jayte maadaama aan uga dayday haddii walaalahay ayba dilow hayaan adigana xeybkuugu dhex noolayeen aan anuguna ula diray markii ninkii aad halkan ku disho ka carray magaalada ma ka baxeen waa ka carareen magaalada maalintii aan mahan ku dilay xilliga aan mahan ku dilay isla ciyowba beliska way ka baxeen barkeed dagaal nugulama gelin ilaahay aad diray dalka sida badan waa ka tageen iyo koo webi ka dugay ilaa waagadaan joogan markastay ka soo tilaabaanna waa u taagana ma sha Allah hadda 2 asbuuc ka hor waa la jira waxaan kula diriraa meel leeraa Oobane ilaa adeesadana waxaan u taagana inaan la diriro cadawga ku soo duulay dalkan iyo dadkan ee ka dhaxeeyo ummadda Soomaaliyeed ilaahay intuu abuuray gaal iyo muslim cadow ku soo duulo ahay halo u naxariista ma lahayn cunug dhaafi meehin islaan dhaafi meehin anfacad dhaafi meehin wax uu dhaafaya ma lahayn maalintaas ilaa ay hadda la joogo waxaan u taaganahay difaaca dalka dawladdu ku taakulaysa ma arag deegaankayga dadka aan ka dhashay qorayaan cadawgan ka xooga aad u jeedo barxadana ninka uga qaatay anuu hortiis qoramalay qora qaraabaan ku dilay qaraabadana gobol erigooray kala baxeen gobolna ilaahay kuma daraadee meel ay ka keenan ma aqaan goorba afka hore adoog hore kala hereene Oregon tiyatiya la sidii jiray ilaa xilligii Maxamed Siyaad way noo aruursanaa jireen laakiin maalintaas inta kadib bacdiyeeda birta bayga noogu ma jirin biriga iyo hadda la joogana waxaan diyaar u nahay dalkan saan loogu damaashada lagu dalxiisaayo horumarkiisa walaalahay waa ku dhiirigeliyay iyaguna waa ay u garab qateen waa ay u gees istaageen waa ay la qabteen way la qabteen way la raaceen waana ila rogan hadda inay ila dilaan hadda maadaama nin mujaahid oo geesi ah maxaad codsanaysaa dadka Soomaaliyeed dawladda بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka codsahaa inta magacayga muuqayga taqaano
madaxweynaha Soomaaliyeed weyn madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka wasiirka gobolka gobolnatooraha kan isteedka Hiiraan ilaa gobolnatooraha magaalada Muqdisho amba caasimadda Muqdisho caalanka inta ummad Soomaaliyeed joogto in waxaan ka codsaa ay nagu dhiirigeliyaan si aan u dilna cadawga aan ugu diyaar garowno anunkana ay noo garab qabtaan ninkii dhibana ah oo sida aniga oo markasta u taagan oo dantiisa iyo dantiisa inta soo dagaal danta guud soo istaagan inay gacanta ku qabtaan aan ka codsaa taliyaha booliska Hirshabeelle gudoomiyaha rugta ganacsiga Hirshabeelle taliyaha xoogga anuu dawladda loo kala aqaan ma aqaan aniga ninba ka magac dheer yahan leeyahay nin iska herbaadiyahan ah waxaan ka codsahaynaa inay garab qabtaan inay noo heeliyaan inay dadka nala difaacaan dalkan iyaga u dhaarta dadkay u dhaartaan ka midna duurkayayna dhiginaan leenahay hana garab qabtaano mas'uul kasto yimaada mahan sidaada banna wuxuu leeyahay gudoomiyaha mahan yimid waa u mahad celiha wuxuu leeyahay saraakiisha dawladda waa u mahad celiha dadkii dantoori gaar ahaan inta soo dacay sargaalka dawladda dantiisa u haysta ilmihiisu beelay haysta beledkoori ku hoydaan anunkuna buuraha iyo baadiyahan ku jirna dantayna gaar ahaadna waa soo dayacnay yey marka madax kasto timaadnay saraakiisha xaggeer u leexane ciidanka deegaankana ha ku qabata afka idinkana wax ugu darto marka waa mahadsantiin soo dhawaaw madaxweyne Cali Guudlaawa gaar ahaan waxaan leeyahay madaxweynaha Hirshabeelle gaar ahaan iyo gobolnatoorihiisa waxaan leeyahay dadkii aad u dhaarateen oo shabeellada dhaxan ka mid ahay ogaada in aan u taaganahay waaga cadawga dilidiisa idinkan heella idinkaga baahanahay iyo Ilaahi weyn waxa kaas wuxuu ahaa Maxamed Maalin Jiniqow oo ah nin mujaahida oo deegaankan ka soo jeedo sida uu isagu sheegana halkan ka fuliyo howlgal barakeysnaa oo horjooga shabaab uu ku qaarijiyay goobtan mudahatan laga joogo sanad iyo bar ka hor xilliga uu bilaabanayay kacdoonka ka dhanka al-shabaab waxaan rajaynayaa in fariintiisa ay gaari doonto madaxda qaranka lagana soo jawaabi doono haddii Ilaahay yiraahdo waa Axmed Saciid Axmed oo idin kala soo hadlaya Ceel Baraf Shabeellada Dhexe